رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. laabasho wanaagsan asxaabta dhammaan tiimka Somtic Academy meel walba ay joogtaan. Ramadaan Kariim. insha Allah tacaala muuqaalkan waxaan aan ku falanqeynaynaa lacagaha la filayo in ay dhaqaaqaan isniinta oo yacni maalinta beri ah markuu suuqa furmo. lacagaha markaasi aan asgareynayno insha Allah waxaan asgareynaynaa marka DXY lacagtan DXY oo ah dollar index. lacagtani horta waxay ku fiican tahay waa lacag macnaha dollarka ayaa lagu cabiraa, so waxay cabiraysaa ama ay ku sheegaysaa jihada guud ee lacagta dollarka. lacagahana waxay leeyihiin correlation ama lacagaha way is saameeyaan. tusaale ahaan euro USD iyo JB USD saameyn isku leeyihiin. mid baa laga yaabaa inay buy aado, midda kale sell aado, ama waxaa laga yaabaa laba lacagood oo macnaha laba beer oo USD ku jirto inay hal jiho wada aadaan ama jihooyin kala duwan ay aadaan. waxaa la dhahaa correlation, waa inay lacagaha markaa ay is saameeyaan. marka waxaa ka bilaabeynaa lacagtan DXY aan falanqeynayna insha Allah tacaala. horta waxaa iska eegaynaa inuu news soo bixi rabo beri oo ah isniin 26 bisha. beri sida ujeedaan wax news soo jiro ma lahan, soo markaa waxaa fuli karnaa ama waxaa sameyn karnaa sell trade. talaadada ayaa warar soo baxaayo ma fahantay, JBY iyo kasoo baxaayeen arbacada iyo balse beri isniina nadiif waay suuqa oo way geli kartaan. okay, marka falanqeyntan waxaa kasoo bilaabeynaa waxa la dhahayo dailiga ama weekliga kasoo bilaabeynaa. sababta weekly usoo bilaabeyna waxaa waa inaan ogaano market trends, inaan ogaano jihada suuqa. sida halkan uga jeedaan DXY waxay ku jirtay toddobaadkan ama dhowrkii toddobaad u dambeeyey. sida ujeedaan waxay ku jirtaa down trend ay ku jirtaa. because of down trend waxaa ku ogaanaysa inay tahay waxaa ujeedaa waxaa isticmaalaynaa this tool. okay, marka isla eegno lacagtaas ujeedid waxay ku jirtaa waxaa ku dhahay down trend. waxaa caddeynaya higher lower ayay samaystay. meeshaan higher waaye, halkaana lower waaye, meeshaan haddana lower haddana lower ay samaystay. okay, intaas la fahamteen ayaa rajeynaya. marka jihada waxaa soo helnay inay tahay suuqan down trend ay tahay ayaa soo ogaanay in ay tahay down trend ayaa soo xaqiijinay garatay. sidoo kale halkan se ujeedaan waxay noqonaysaa area ama waxay noqon kartaa zone, way noqon kartaa zone ay noqon kartaa. marka zonka u cabirano waxaa isticmaalaynaa rectangular tool ayaa isticmaalaynaa. okay, waxaa soo aragnay inay tahay suuqan, waxaa soo helnay inay tahay down trend. sidoo kale waxaa soo helnay support zone ama support ayaa dhigi kartaa. labadaas meel markaa soo xaqiijino waxaa imaanaynaa dailiga one dayga. dailiga markaa imaana sida ujeedaan si clear leh aan ugu muuqataa oo maasha Allah. sida ujeedaan waxaa ujeedaa uptrendiga inuu u saxan yahay.
uptrending marka waxaa ku qabanaa halkaas. Alright, marka sida ujeedaan waxaa kaloo ujeednaa in meeshaan waxaa kaloo ujeednaa halkan in macnaha ay tahay inay tahay ayadana meel kale ama ay tahay waxa la dhahayo zone kale inuu meeshaas oo macnaha oo ah resistance zone. marka waxaa filaynaa marka market structure hadda u fiirino waxaa isticmaali doonaa price action, market structure iyo waxaa isticmaali doonaa demand and supply zone. intaas isku qabanaa. marka haddii aan market structure isticmaalno suuqan sida ujeedid wuxuu sameeyey move ayuu sameeyey sax oo macnaha halkan uu kasoo kacay wuxuu sameeyey retracement ayuu sameeyey. waxaa laga yaabaa marka in ilaa halkaas ilaa linekaas la gaarsiiyo waxay u badan tahay in ilaa linekaas market oo gaaro. waxaa sameynaynaa marka waxaa soo qaadanaynaa waxa dhaha Paris pattern oo ah yacni naqshadan oo kale inuu suuqana siiyo ay u badan tahay. waxaa filaynaa move saas oo kale ah oo dhanka kor ah in aan ka helno meeshaan. okay ilaa halkaas la tago way dhici kartaa ilaa halkaas in la tago. waxaa kaloo ku ogaanaysaa haddii tusaale ahaan masalan aan hadda zoom aan kusoo sameyno zoom ayaa kusoo sameynay suuqa markuu halkan gaaray asxaabay suuqa markuu uu gaaray markuu halkaa imaaday u fiirsadaya suuqu markuu imaado halkan markuu imaado wuxuu sameeyey suuqan markuu halkaa tagay markuu kan dhalkaa uu ku ekaa sida ujeedaan daya alright suuqa linekaas ayuu ixtiraamay ujeedaa linekaas ayuu ixtiraamay. kadib maxaa dhacay kan dhalkii wuu jabshay linkii. marka qaladaadka ay sameeyaan waxaa ka mid traderska markay arkaan oo kale in macnaha supportiga ama resistancega la jabshay oo waxay isleeyihiin yacni resistancega la jabshay break out sameeyey kadibna retest markuu sameeyo boom suuqa buy u qaado. balse nimankan institutional traderska ama ragga macnaha suuqan iyo bankiska waxay sameeyaan madaxweynta suuqa waxay sameeyaan yacni manipulation ay sameeyaan market manipulation. يعني halkan waxaa laga yaabaa in dad badan oo markaa buyers ay halkan dalab macnaha buy uu jiro ama buy stop ama dalab buy maadaama ay isdhaheen waa la jabshay resistance break out dhacay soo hadduu retest yar oo sameeyo ama uu sameeyo suuqa kor u gal maxaa dhaca marka u fiirso waa la jabshay macnaha waa loo been guuray kadibna suuqii macnaha wuxuu sameeyey kan halkaas muxuu caddeynaa kan halkaas ujeedaan wuxuu caddeynayaa in break out markuu sameeyo retest inuu sameeyo oo linekii ixtiraama kan dhalkan weliba uu ku xirmay kan halkaas u fiirso uu ku xirmay sax markuu ku xirmay marka maxaa is leedahay adi ahaan macnaha adiga hadda videoga daawanaya maxaa ka filaysaa waxaa is leedahay yacni suuqan boom waxaa is leedahay just yacni break out and retest wuu dhamaystay ilaa halkaas baa macnaha ka dhiga lahayd take profitka ilaa halkaas baa u gelay sax. laakiin maxaa dhacay maxay sameeyeen institutional traderska bal u fiirso waxay sameeyeen u fiirso waxay sameeyeen macnaha si ujeedid waa kaasa sell ayaa loo soo daashay suuqu soo daatay down ilaa hoos u imaaday ilaa meesha ugu talagalna u imaaday saas ayaa markaa ay u khasaareen kuwii ma fahantay marka kuwii saasaa loo khasaaray.
arrintaas marka waa inaad iska hubisaan oo iska egtaan akhyaaray. Market strategy-kan sidaa wey. Marka waxaa filaynaa hadda move-kan inuu sameeyo move la mid ah, ama waxaa possible ah in yacni uu sii socdo sii socoto uu sii socdo ayaa dhici karta, sii socdo ilaa halkaas oo imaado oo ixtiraamo ma garatay, ilaa halkaa oo ixtiraamo oo imaado markaa supportigaas la keeno qiimaha. waxaa kale leenahay DXY inaad la garateen ayaa filaya. marka sidaa weeyaan. waxaa loo baahan yahay inaad akhyaari marka sidaa u fahamtaan. lacagtan DXY ayaa falanqeynaynay. insha allah muuqaalka intaas ku yahay. haddii aad u baahan tahay insha allah muuqaalo badan, fadlan subscribe saar insha allah si u hesho muuqaalo badan oo free ah oo professional ah. suuqan yacni wax ku analyse gareynayo qof suuqan ku jiro 4 sano 3 sano ilaa 4 sano kaaga horreeyay oo khibrad u leh. marka sida awgeed waa inaad channelkan subscribe aad saartaan insha allah si aad muuqaaladan u heshaan oo free ah insha allah.